dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka qisaska ee markaasi waxa weye aad kala socotaan youtube-keena axmed toyo dhegeystayaal caaweeye hadii jeer waxaan kusoo qaadanaa taariikhda iyo qisaska markaasi cibra qaadashada leh iyada oo markaasi dadka ku xiran boggeena aanu markaa usoo gudbinayno arrimaha markaa xiisaha leh oo ay danaynayaan bal markaa waxaanu eegeynaa qisadii nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam yuunus ibnu mata haddaba aanu eegna qisadaasi waxa ay ku bilaabanaysay tuulada markaa la yidhaahdo nino oo markaasi ka tirsan dhulka muusil ee dalkaasi ciraaqa ayaa waxaa ku noolaa qoom markaasi caabudayay saramyo islamarkaana iska diiday caabudada alle una shariig yeelay kuwaas ayaa markaa ilaahay waxa uu doonay in uu hadeeyo uu markaasi waxaweye diintiisa wanaagsan ku hadeeyo waxa uuna markaa ilaahay usoo diray nebi yuunus ibnu mata calayhi salaatu wasalaam kuwaas oo markaasi waxaweeye ilaahay uu la doonay in uu ku hanuuniyo balse markii nebi yuunus uu yimid calayhi salaatu wasalaam ayay iska diideen in markaasi waxaweeye ay markaa dhegeystaan isla markaana ka qaataan camaasha wanaagsan ee nebigaasi saalix ahay uu waday haddaba markii uu u muddo markaasi nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam uu bulshadaasi waxaweye la hadlayey ayay markaa waxaweye ka diideen waxaa markaa dhacday qiso layaab leh oo qisadii ku saabsaneyd markii uu badda aaday islamarkaana doon uu saarnaa inta doontaasi aysan sidaa dhicin ayaa dhacday in nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam uu ka carooday qoomkiisa islamarkaana waxaweeye uu u baxay dhinaca xeebta ah halkaas oo uu markaasi waxaweeye ka raacay dooni yar doonidaas ayaa markaasi waxa ay badda ku dhibaatootay kadibna waxa ay ka tuureen qaar ka mid a xamuulkii iyada oo markii dambe ay bilaabeen in dadku ay yidhaahdaan aanu quracayno oo qofkii quracu ka dhaco ha laga tuuro doonta si markaasi loo fududeeyo waxaweye culayska doonta saaran sida ay qabeen dadkaasi haddaba qore tuurkii ayaa waxa ay ku dhacday markii sii horeba nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam iyada oo markaasi qoomkaasi ay aaminsanaayeen inuu yahay qof saalixa oo wanaagsan waxa ay iska diideen sidaa yeelaan oo waxay yidhaheen quracaynta aanu mar kale qoratuurka ku celino oo aanu eegno iyada oo markii labaadna sidoo kale ay markaasi waxaweye ku dhacday nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam waa amuur eebe mar kale ayaa lagu celiyey oo ah markii saddexaad waxa ay ku dhacday nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam nebi yuunus ayaa markaasi waxaweye waxa uu ku qasbanaaday in uu markaasi doonta uu ka boodo sida sharcigu uu ahaa oo iyadoo qofku uu qabtaay doonta uu ka boodayey magangelyada eebe ayuu galay waxa aana markaasi ilaahay uu soo diray in libiri weyn oo nooca badda ku jira kaas oo markaasi afka u kala qaaday nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam oo uu markaasi waxaweye ku dhex dhacay haddaba nebi yuunus markii uu ku dhacay caloosha xuudka libiriga weyn ayaa markaasi waxa uu dareemay 3 mugdiyood oo ah mugdiga badda iyo weliba mugdiga caloosha iyo weliba mugdiga kale ee markaasi roobka ayaa isaguna weheliyey oo roob da-ay baa layidhaa taas oo markaasi nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam ku noqotay mid la yaab leh oo markaasi aada uga cakirmay waxa uu maqlay nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam wax subxaan allah oo markaasi waxaweye tasbiix ayuu maqlay waxa uuna la noqotay wax la yaab leh tasbiixdaasi waxa uuna ogaaday in markaasi waxaweye kalluunka badda ku jiraahi uu yahay mid tasbiixsada markaa ayuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kunta min adaalimiin nebi yuunus waxaa la sheegaa in isaga oon loo amrin oo markaa cara ka qaaday qoomkiisa oo ka diiday diinta uu faafinayey ee islaamka in markaasi uu isaga oo caraysan uu kasoo tegay islamarkaan uu ka safray taasina waxa ay ahayd baa la leeyahay mid ilaahay uu markaasi wax ku tusaayey lalabitha fii badnihi ilaa yoomin yubcathuun aayad qur-aan weeye iyada oo markaasi micnaheedu yahay haddii markaasi uusan nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam uusan ka mid ahaan lahayn dadka tasbiixsadaahi waxa uu ku jiri lahaa caloosha xuudka malayga weyn ee badda ku jira waxa uu ku jiri lahaa muddo dheer ilaa yoomin yubcathuun ilaa xilliga soo bixinta taasna waxa nebi yuunus uu ahaa mid tasbiix badan oo markaasi ku celceliya subxaana allah oo waxa weye aada u tasbiixsada ka hor inta markaasi uusan labirug laqin
iyo weliba markii libirigu laqay ee uu xuudka calooshiisa uu ku jiray. nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam ayaa markaasi xuudka ku nagaaday muddo isaga oo subxaanalaystay aadna ilaahay ugu tasbiixsaday. markii dambe ayaa allah ayaa amray in nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam uu xuudku markaasi calooshiisa ka soo bixiyo. kadibna malaygii kalluunkii weynaa ayaa ilaahay amray in uu xeebta u dhowaado si markaasi waxaweeye uu u tufo nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam. haddaba nebi yuunus oo markaasi xuudka calooshiisa ku jiray muddo dheer ayaa markaasi waxaweeye xeebta uu ku soo tuuray isagoo caari ah oo markaasi waxaweeye qaawan. waxaana markaa ilaahay u suuro geliyey in geed weyn oo markaasi xeebta ku yaalay oo nebi yuunus ilaahay marka horeba uu u sii diyaariyey in mirihiisii uu laqay, dibna uu markaasi u caafimaaday maadaama libiriga calooshiisa uu markaasi waxaweye muddo dheer uu ku jiray. islamarkaana geedkaas oo markaasi ka samaysnaa caleemo waaweyn ayuu dharkiisii waxaa la sheegaa in markaa uu dharka dhigtay uu isku asturay. nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam qoomkiisii oo markaasi cadaab loo keenay ayaa markaasi aaminay in markii wixii uu sheegayay nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam ee diinta faafinteeda ahaa ay ahaayeen wax dhab ah, iyaga oo markaasi allah baryey islamarkaana nebi yuunus raadiyey hayeeshe ee waayey maadaama uu ku jiray caloosha libiriga. mallaybadeedka weyn ayuu calooshiisa ku jiray, sidaas daraaddeed meel walba oo ay ka raadi kareen qoomkiisu way ka raadiyeen. hayeeshee waxay ahaayeen kuwo islaamay oo diinta qaatay. markii uu magaaladii ku laabtay iyo deegaankii uu ka yimid nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam waxaa u tagay qoomkiisii oo qaatay diinta islaamka islamarkaana jajabiyey sanamyadii halkaa waxaweeye ka dhisnaa. dhegeystayaal, taariikhda nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam ayaanu intaa kusoo goobaynaa, iyada oo weliba aan markaa isku dayi doono in markaa aan mar kale soo gelino iyada oo intaa ka faahfaahsan. aad baan ugu mahadsantihiin in aad la socotaan qisaska ambiyada, gaar ahaan qisada nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam. waxaan jeclaan lahay in boggeena aad markaa sabscribe tiraa si aad ula socoto taariikhyada kale iyo markaa qisaska kale ee ambiyada. aad baan idin salaamayaa jaalayaal.